waayo iyo xilligii gumeysiga ee Talyaaniga uu ku sugnaa dalkeena Soomaaliya. Waxaa jira tiro iskuulaada oo ku yaala koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinkii Muqdisho iyo Kismaayo, taasoo dowladda Talyaaniga ku taageeri jirtay in lagu diyaariyo caruur waxbarata taasoo badbaadisa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Iskuulaadka ayaa waxaa qayb ka ahaayeen macallimiin Talyaaniga iyo barayaal Soomaali asal ahaan ahaa kuwaasoo lagu soo tababaray dalkii Talyaaniga. waxaana iskuulaadkaas laga faa'iiday in manhajkii waxbarashadii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay qaadato uu noqdo Talyaani, taasoo ay wax ku barteen aqoon-yahanadii qaybta ka ahaa dhisidii Soomaaliyadii cusbayd. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu asal ahaan gumeystay Talyaaniga, balse aanu ku raagin afka Talyaaniga inay ku hadlaan. Daawaday, ma ogtahay inay Soomaaliya lahayd waxay Talyaaniga ugu yeeraan Consiglio Territoriale dalla Soomaaliya, kuwaasoo ah kuwa go'aanka wax ka qaata ama administrative waxay Talyaaniga ugu yeeraan. waxayna ay soo saari jireen go'aanada lagu maamulayo dalkooda hooyo si ay wax manaafacaad ugu noqdaan ka hor inta aan la qaadan dowladnimo casri ah. magaalada Muqdisho ayaa sidan u dhisnayd, waxayna ka bedelnayd magaalooyin badan oo jiray oo xilliga gumeysiga ku jiray. waxa ay qaadatay dhismaha hanaanka Talyaaniga. waxaad daawanaysaa hadda kilibka kaniisadii Talyaaniga ee ku tiilay magaalada Muqdisho. sidoo kale magaalada Xamar waxay ugu yeeri jireen Talyaanigii xilliga La Città Bargellense di Xamar. waxayna Soomaaliya xilliga lahayd meel ay dhalinyarada iskugu yimaadaan kana doodaan waxyaabaha ku soo kordha dalkooda hooyo, gaar ahaan kafeeyadii magaalada Muqdisho ku yaallay. waxaana xilliga kafayga ay kaga hadli jireen maalinlaha sheekooyinka ay wixii joornaalada lagu qoray.